bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo laba sabab u diiday inay la kulmaan madaxweyne Farmaajo maxaa ka soo baxay kulankii qarsoodiga ahaa ee saacadaha qaatay u dhaxeeyay taliyaha sirdoonka Soomaaliya iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya xog iyo macluumaad ku saabsan xiisadda doorashada Soomaaliya damaca filla Soomaaliya qorshaha mucaaradka iyo doorka beesha caalamka ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo xilka loo kordhiyay iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda dalkaasi Itoobiya madaxweyne ku-xigeenkii dowladda deegaanka oo loo doortay gudoomiyaha aqalka sare ee Itoobiya dowladda Qatar oo si jees kaga jawaabtay codsi kaga yimid dagaal ooga Generaal Khalifa Haftar iyo macluumaadyo kale ayaan kugu soo gudbin doonaa warkeena xilligan waa 11 bisha lixaad sanadka 2020 u diyaar garow inaad daawato wararkaasi iyo warar kale intaasi ka faahfaahsan oo aan kugu soo gudbino wararkeena xilligan haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe dheh oo hel macluumaadyada aan halkan ku soo gudbino like saar muuqaalkan lana wadaag saaxiibadaada ka dhiib aragtidaada qodobka ku soo jiita macluumaadyo dhowr ah ayaan goordhow eegi doonaa balse waxaan ku hormari doonaa Itoobiya iyo xiisadda ka taagan baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa muddo aan la cayimin waqti kordhin u sameeyay xukuumadda dhexe ee dowladda Itoobiya ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kadib kulan ay maalintii shalay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sidoo kale xildhibaanada ayaa waxay u codeeyeen in si la mid ah xukuumadda waqtiga loo kordhiyo maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka ee Itoobiya kulankii baarlamaanka ayaa laga sheegay in doorashada guud ee qaranka dalkaasi la qaban doono 9 bilood kadib markay mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Itoobiya ku dhawaaqaan inaysan dalkaasi ka jirin halis caafimaad maadaama dalka Itoobiya caabuqa coronavirus saameyn badan uu ku yeeshay dadka ka soo horjeeda talaabada baarlamaanka Itoobiya waqtiga uu kordhiyo xukuumadda ayaa walaac ka muujiyay inaysan jirin cid og waqtiga uu dhamaan karayo cudurka coronavirus talaabada baarlamaanka dalka Itoobiya uu qaaday waxay ku soo beegantay iyadoo isniintii toddobaadkan ay iscasishay afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya Khayriya Ibrahim Khayriya oo ka hadlaysay sababta ay xilka isaga casishay waxay sheegtay koox kale talisa in maalin walba dastuurka dalka Itoobiya ku xadgudbayaan taasi oo inaanay la sii shaqeyn karin diyaarna aysan u ahayn kooxdaasi sida hadalka u dhigtay waxaana ay u muuqataa inay ka careysnayd qorshaha dib u dhigista doorashada oo ay ka warheshay xilli sii horeeyay Khayriya Ibrahim waxay ahayd xubintii ugu dambeysay xisbiga Tigreega ee dalkaasi ku matalaya dowladda dhexe waxaana jira khilaaf culus oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Abiy iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya oo kol hore ku goodiyay in uu qabanayo doorashada guud ee dalkaasi Abiy Ahmed isbedel weyn ayuu ka sameeyay siyaasadda dalka Itoobiya tan iyo markii xilka uu la wareegay 2018 wuxuuna xilliga taladaasi uu kala wareegay dalka xisbiga Tigreega ee muddada dheer soo xukumayay dalka Itoobiya bilihii ugu dambeeyay Abiy Ahmed ayaa wajahaya mucaarado waaweyn iyo dhaliilo ku aadan sida maamulkiisa uu u maareynaya awood qaybsiga federaalka waxaana eedeynta ugu badan ugu imaanaysa ismaamulka Tigreega markana aan eegno xogta ku saabsan waxyaabaha keenay in Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay la kulmi waayaan madaxweyne Farmaajo hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran ahna madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gudoonka golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa kuwaad ka diiday dalab ahaa inay la kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynayaashii hore ayaa gudoonka u sheegay inaysan la kulmeynin madaxweyne Farmaajo isla markaana iska laabtaan gudoonkooda maadaama ay ahaayeen kuwa iyaga dalabka waday warbaahinta waxay ogaatay qaar ka mid ah qodobada ay sabab ay ugu dhigeen mas'uuliyiintan inaanay la kulmeynin madaxweynaha labada madaxweyne ayaa waxaa la sheegay inay rumaysan yihiin in madaxweyne Farmaajo aysan daacad ka ahayn kulanka isla markaana aanu dooneynin xal siyaasadeed balse taasi beddelkeeda uu rabo in uu qaldo ra'yi caamka ama warbaahinta iyo indhaha beesha caalamka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ayaa rumaysan in haddii madaxweynaha uu xal rabo uu ogolaan lahaa inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada dalka ilaa haatan la sheegay inuu ka cagajiiday balse qorshihiisa ahaa inuu cadaadiska beesha caalamka isaga yareeyo la kulanka labada madaxweyne isla markaana isku muujiyo nin mucaaradka la fariisanaya siday hadalka u dhigeen ilaa xog ogaalka ee warbixinta laga soo xigtay waxaana sidoo kale ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uusan ka soo bixin qodobadii hore lagu heshiiyay waxaana mursal ay ku yiraahdeen madaxweynaha hadda ka hor ayaan la kulanay waxaana aan ka heshiinay 6 qodob hal qodob oo kamid ah waxba kama uusan qaban xitaa iskuma dayin mana jirta sabab aan mar kale ula kulanno waxa sii adkaanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyada oo ay sii kala tagayaan dhinacyada siyaasadda dalka waxaana kordhiya cadaadiska madaxweynaha ee beesha caalamka ay ku saareyso inuu
inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada iyo mucaaradka, balse bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay qabaan walaac xoog leh oo ku saabsan xaaladda waddanka, waxaana cabsi laga qabaa in xaaladda intaani ay kasii adkaato haddii madaxweynaha aanu soo dabcin. markaana aan ogaano kulankii gaarka ahaa ee dhexmaray James Swan iyo Fahad Yaasiin. faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa kulanna la sheegay inuu ahaa mid gaar ah oo ay yeesheen wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. kulankaas ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa mid ka dhacay Xalane, waxaana la sheegay in looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka iyo doorashooyinka la wado in dalka Soomaaliya ay ka bilowdaan dabayaaqada sanadkan. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa agaasimo Fahad Yaasiin u dhiibay madaxweyne Farmaajo macluumaad taasi oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadis badan lagu saaraya xukuumadda inaysan dhaafsiisan waqtigeeda. agaasimaha hay'adda sirdoonka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu tirinaya xubnaha saameynta ugu badan ku leh dalka maadaama uu hogaamiyo sirdoonka, waana tan keentay in James Swan xilligan uu kala hadlo arrimo doorashooyinka ay ka mid yihiin. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu cadaadinayaa inay ku dhaqaaqaan doorashooyinka dalka oo aysan waqtigooda la dhaafin, iyada oo dad badanna ay qabaan tuhun ku aadan in madaxdu ay doonayeen dib u dhac doorasho uu dhaco. waqtiga ka hara muddada xilhaynta madaxda qaranka oo kooban ayaa dhaliyay in saacadii ugu dambeeyay ay iska soo daba dhacaan baaqi isdaba joog ah oo ay jeedinayaan gudoomiyaha aqalka sare, dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Hirshabelle iyo madasha xisbiyada qaran, safaaradda Mareykanka ee Muqdisho iyo dhinacyo kale. dhinacyadaas dhammaantood waxay ka midaysan yihiin sidii lagu sheegay war-saxaafadiyadooda in wadatashi laga yeesho siyaasadda guud ahaaneed ee dalka Soomaaliya ka hor intaan la gaarin 25 bishan, balse ma muuqato in dalabyadaasi ay muuqdaan kuwa dhaqangalaya. laakiin kulamo iyo dadaallo kala duwan ayaa ay wadaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. markana waxaan eegaynaa warbixin dheer oo ku saabsan xiisadda doorashada Soomaaliya, damaca filla Soomaaliya, qorshaha mucaaradka iyo doorka beesha caalamka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu shaaciyay war u ogolaaday mucaaradka ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dowlad goboleedyada ay sahayeen xukuumaddiisa in door ay ku yeeshaan inay ka hadlaan hanaanka doorashooyinka ee dalka oo la madalsan yahay dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda. taasi waxay wadada u furtay inay soo dhaweynayo taageero ay muujiyaan dowlad goboleedyada, mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda ku jira. madaxweynaha Soomaaliya ayaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya la hadlay bishan June, waxaana uu raaciyay isla warkii wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha, waxaana uu sheegay in qabsoomidda doorashooyinka dalka ay tahay mid waqtigeeda ku dhacaysa. laakiin madasha xisbiyada qaran iyo dowlad goboleedyada qaarkood waxay su'aal ay ka keeneen qabsoomidda doorashooyinka inta aanan loo gudbin hanaanka ay ku dhacayso. 50 sano kadib baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga doorashooyinka dalka, waxaana uu ku saxiixay madal loo dhan yahay madaxweyne Farmaajo xilligaas oo laga joogo bilo ka hor, waxaana uu shaaciyay in dalka doorasho ay u dareerayaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo awood leh. muddaxileedka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabaabsi ah, waxaana hadda ay ka doodayaan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. aqalka Soomaaliya waxa ay shalay soo saareen in markii labaad ay dhexgalayaan dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. madasha mucaaradka iyo dowlad goboleedyadu waxay doonayaan in door ay ku yeeshaan arrimaha qabsoomidda doorashooyinka, waxaana dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya bishii May ee 2019 isku mari waayeen dhismaha madasha wada tashiga ah oo horey u jirtay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lana go'aamiyay tallaabooyinka doorashada. dowladda Mareykanka oo kamid ah dalalka taageera Soomaaliya gaar ahaan dhinaca amniga iyo siyaasadda ayaa safaaradooda Muqdisho barteeda Twitterka ku shaacisay in loo baahan yahay in la qabto kulan dhexmara madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhammaan dhinacyada ay ugu horeysa federaalka Soomaaliya waxay iska qirsan yihiin qabashada doorasho hufan inay dhacayso, waxaana dowlad goboleedyada qaarkood gaar ahaan Puntland ay muujisay walaac ay ka qabto in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo kororsi ay sameeyaan. laakiin guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo uu awood dheeraada siinaya sharciga doorashooyinka ee dhowaan la ansixiyay soona maray labada gole ee matala dowlad goboleedyada dalka ayaa 27 bishan jeedin doona hadal jeedinta dastuurka ah, waxaana lagu saadaalinayaa inay ku dhawaaqaan doorashada ay awoodda ay u leeyihiin inay qaban karaan. arrimahaasi oo idinla waxay yihiin kuwa si aada isha looga hayo oo ka socda gudaha dalkeena Soomaaliya. markana aan eegno dalka Ethiopia.
kulan ay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay ku yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi Itoobiya ayaa markii ugu horeysay gudoomiye Soomaaliya loogu doortay golahaasi. Aadan Faarax Ibraahim oo dowlad goboleedka Soomaalida ka soo noqday madaxweyne ku-xigeen ayaa cod aqlabiyad leh loogu doortay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya. Gudoomiyahan cusub ayaa siyaasi caan ka ah gudaha dalkaasi Itoobiya waxaana xilal kala duwan uu ka soo qabtay deegaanka Soomaalida isagoo hadda ahaa madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida. Gudoomiye Aadan wuxuu noqonayaa Soomaaligii ugu horeeyay ee xil sidaasi u sareeya ka qabta dalka Itoobiya iyadoo aqalka sare ee dalkaasi ay ka kooban yihiin 153 xubnood oo Soomaalida ay 6 kursi oo kaliya ku leedahay. Itoobiya waxaa ka jirta xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada dib loo dhigay waxaana uu gudoomiyahan cusub bedelayaa Khayriye Ibraahim oo maalin ka hor xilkaasi iska casishay. ugu dambeyntiina dowladda Qatar ayaa jawaab jees-jeesa waxay ka bixisay codsi uga yimid dagaal ooga General Khalifa Haftar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa jawaab jees-jeesa u muuqatay ka bixiyay codsigii dagaal ooga General Khalifa Haftar uu soo marsiiyay dowladda Masar oo ahaa in xabajoojin laga hirgeliyo gudaha dalka Liibiya. Al Thani waxa uu yiri inta Haftar uusan tixgelin lahayn geedi socodka nabadda Liibiya haddii uusan la kulmi lahayn guuldarrooyinka military balse haatan danta ayaa ku qasabtay. waxaan sheegaynaa tan iyo heshiiskii la gaaray sanadka 2015 inay lagama maarmaan tahay in colaadda Liibiya lagu xalliyo hanaan siyaasadeed ma ahan in lagu xalliyo awood military. Haftar mar walba waxa uu door bidi jiray inuu qalalaasa adeegsado wuxuuna hanaanka siyaasadeed tixgeliyaa kaliya marka uu qasaaro. Sidaas ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar. guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka waa naga intaa warkan warka xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo.